asalaamu calaykum soo dhowow daawade waxaan doonayaa inaan kuu sharxo filim lagu magacaabo Blood Diamond. waa filim koobaya qaybo badan oo nolosha ka mid ah. haddaba daawo oo iska taxadar. filimku waxa uu ku bilaabanayaa waddanka Sierra Leone sanadkii 1999 waxaana jiray xilliga dagaalo sokeeye iyo jabhado ama kooxo. Salimon Fendi waa ugaarsade waxa uu la nool yahay qoyskiisa oo ka kooban xaaskiisa iyo 3 carruur kale waxayna ku nool yihiin tuulo yar. riyada ugu weyn ee uu lahaa waxa ahayd in wiilkiisu uu dhammaysto waxbarashada iskoolka uu ka dhiganayay tuulada si ay noloshiisu u noqoto mid ka fiican tan aabihiisa. dagaalkuna dadku lama tashto, xabaduna ma kala taqaan carruur iyo ciroole. tuulada Salimon waxaa ka bilowday dagaalo kacdoon iyo fowdo. waxaa soo galay kooxo sheegtay magaca kacdoon. waxay dileen dhammaan dadkii ku noolaa tuulada, carruur iyo ciroolaba. qaar bay ka jireen gacmaha si aysan uga qaybgelin codaynta doorashada. waxay afduubteen ragga awoodda leh si ay uga shaqeeyaan raadinta macdanta Diamond, halka carruurta ka yar da'da 12 jir ay barayeen sida hubka loo rido loona dagaalamo si ay uga mid noqdaan kacdoon. markii ciidamadu kacdoonka ay soo weerareen tuuladii Salimon waxaa la qabtay Salimon halka xaaskiisii iyo 2 carruur kale ay ka badbaadeen, laakiin wiilkiisii weynaa ee Diya ma awoodin inuu baxsado. waxay ku dareen carruurta la dagaalbarayo si uu uga mid noqdo kacdoonka, halka Salimonna lagu daray raggii ka shaqaynayay raadinta macdanta Diamondka. isagoon ogeyn xaaladda qoyskiisu waxa uu bilaabay ka shaqaynta hawshii loo diray. intuu ku guda jiray raadinta macdanta waxa uu arkay mid saaxiibka ah oo la shaqaynayay oo qarinaya Diamond uu helay, laakiin si kedis waxaa yimid hogaamiyihii ciidamada kacdoonka. waxa iskugu yeeray dhammaan shaqaalihii wuxuuna ka amray shaqada inay joojiyaan. intaa kadib Salimon saaxiibkii waxaa arkay hogaamiyihii kacdoonka wuxuuna ku amray inuu soo bixiyo macdanta. markii uu dibadda u soo bixiyay isla markiiba waxa uu xabad kaga dhuftay feeraha waana uu dhintay. dhinaca kale filimku waxaan aragnaa nin lagu magacaabo Danny Archer. wuxuu ahaa askari hore balse markan waxa uu la shaqaynayay mid ka mid ah ciidamada kacdoonka si ay uga wada shaqeeyaan kala gudbinta Diamondka iyagoo aan la ogeyn. intaa kadib Danny waxa uu bilaabay ka ganacsiga Diamondka, laakiin nasiib xumo waxaa qabtay ciidamada dowladda. marka uu soo laabano Salimon markaan isagoo ku guda jira shaqada waxa uu helay Diamond Wayne. waxa uu isku dayayaa inuu ku qariyo god, laakiin lama filaan waxa uu gadaashiisa ka arkay Captain Poison oo raba inuu dilo. nasiib xumose intuusan dilin waxaa qarax ku dhuftay ciidamadii dowladda oo rondeynayay, waxayna dhammaantooda u soo kaxeeyeen xabsi ku yaala caasimadda. intaa kadib Salimon waxaa la geeyay qol ay ku jiraan maxaabiis kale, waxaana ka mid ahaa Danny Archer oo isaguna hore loogu soo xiray ka ganacsiga kala gudbinta Diamondka isaga oo la shaqaynayay shirkad ku taal Afrika. intaa kadib waxa ay isbarteen Salimon waxa uu sheegay qisadii noloshiisa iyo rafaadkii ay soo marsiiyeen ciidamadii kacdoonka. sidoo kale waxa uu sheegay inuu helay Diamond Wayne. muddo kadib Danny waxa laga sii daayay xabsiga, laakiin ma uusan ka tegin oo waxa uu sugayay inta laga soo daynayay Salimon si ay u raadiyaan Diamondka. laakiin Salimon markii la soo daayay waxa uu Danny ka codsaday in marka hore uu raadiyo qoyskiisa. labadooduna waxa ay bilaabeen inay ka soo baxaan magaaladii ka hor inta aysan soo gelin ciidamada kacdoonka si foodada aysan uga sii badan. nasiib xumase waxaa mar labaad bilaawday foodadii iyo dagaaladii, iyaguna waxay soo dhexgaleen barakacayaasha. Danny iyo Salimon waxay dhowr mar isku dayeen inay aadaan magaalada Connor halkaasoo ay taalo Diamondka, laakiin umaysan suuragelin. intii ay ku guda jireen barakacayaasha dhexdooda Danny waxa uu arkay saxaafiyad u shaqaynaysay qaramada midoobay balse hore ay isku yaqaaniin oo lagu magacaabo Maddie Boyne. waxay Sierra Leone u timid si ay u soo tabiso dhacdooyinka iyo dagaalada ka socda halka. intaa kadib waxay wada sheekaysteen si caadi ah. waxa uu sheegay hawsha uu ku jiro iyo inuu rabo inay ka caawiso raadinta qoyska Salimon, wuxuuna u sheegay inay ku jiraan xerooyinka qaxootiga ee qaramada midoobay. intaa kadib waxay soo aadeen meeshii qoyska Salimon loogu tilmaamay, iyaduna waxay ka caawisay inay ku qaado mid ka mid ah diyaaradaha qaramada midoobay. Salimon waxa uu arkay xaaskiisa iyo 2 carruur halka wiilkiisii weynaa ee Diya uusan la soconin. xaaskiisu waxay u sheegtay in ciidamada kacdoonka ay wateen markii horeba wiilkiisa aysanna ogeyn halka uu joogo. Salimon waxa uu kontarooli waayay dareenkiisa isagoo si aad u xanaaqay, laakiin ciidamada ilaalada ayaa garaacay si uusan rabshad u abuurin. intaa kadib Salimon waxaa loo soo celiyay Sierra Leone si ay u raadiyaan wiilkiisa iyo Diamondkii. waxay dhowr jeer oo kale isku dayeen inay soo aadaan halkii ay taalay ama magaaladii ay taalay Diamondkii, balse qaab ahaan umaysan suuragelin. laakiin markan waxay soo raaceen gaari bas ah oo loogu talagalay inuu qaado wariyaasha. intii ay dhex saarnaayeen gaariga Danny waxa uu sheekeeyay Salimon qiimaha iyo faa'iidada ay leedahay Diamondka. sidoo kale waxa uu sheegay in xilliga ay tahay mid qaali ah. waxaa gaarigoodii soo weeraray ciidamadii kacdoonka. nasiib wanaag labadoodii waa ay ka badbaadeen, waxaana u suura gashay inay soo galaan magaalada, balse magaalada waxaa haysta markaan ciidamada kacdoonkii. Salimon waxa uu bilaabay marka hore inuu raadiyo wiilkiisii. waxa uu helay wiilkiisii oo ku dhex jiro koox ciidamada kacdoonka ka mid ah, waana wiilkii uu ku riyoon jiray mar inuu noqon doono dhakhtar. isagoo isla soo jeedi ayuu kala kulmay dagaal, balse waa uu dejiyay maadaama uu istusay inuu yahay aabihii. intaa kadib Salimon waxa uu dilay mid ka mid ah hogaamiyaashii ciidamada kacdoonka wuxuuna soo qaatay Diamondkii.
labadoodu waxay magaalada uga soo baxeen qaab luga ah, balse intaysan soo bixin Deni iyo gabadhii Mehdi ahayd waa ismacsalaameeyeen, waxayna u qortay lambarkeeda si ay u soo xiriiraan. iyadu waxay soo raacday diyaarad loogu talagalay inay qaado ajaaniibta. Deni Archer markiiba waxa uu soo aaday mid ka mid ah taliyaashiisii hore uu ku arkay oo lagu magacaabo Colonel Kutays, isagoo u sheegay inuu hayo Diamond weyn. laakiin taliyihii waxaa galay damac, wuxuuna qorsheeyey inuu dilo labadooda kadibna uu qaato Diamondta. laakiin Archer waa uu ku fahmay qorshihiisa, isaga ayaana kala hormaray xabadda. intaa kadib Deni waxaa soo gaaray dhaawac, waxaana xabad ay ugu dhacday kilida. markii uu ogaaday inay ku taalo xabad, waxa uu Solomon ka codsaday inuu Diamondta iyo wiilkiisaba la badbaado. waxa uu wacay gabadhii Midboyne ka hor intaysan naftu dayn. waxa uu sheegay inay la kulanto Solomon ayna u qaado London, Solomonna uu sido Diamondta. laakiin umaysan saamixin inuu dhamaysto hadalka. wuu dhintay isagoo gacanta ku haya qayb ka mid ah carada Afrika. muddo kadib waxaan aragnaa Mehdi iyo Solomon oo tagay London. intaa kadib Solomon waxa uu Mehdi ka codsanayaa inay ka caawiso sidii uu u gadi lahaa Diamondta ugana bixin lahaa lacag aad u badan. intaa kadib intii ay ku guda jireen iibinta Diamondka, Solomon waxa uu la kulmay nin lagu magacaabo Van de Kaap. intii ay wada hadlayeen, Mehdi waxay meel dheer ka sii wareeday labadooda, balse Van de Kaap waxa uu isku dayay inuu lacagtii baalmariyo oo uusan keenin wixii lagu balamay. Solomon oo fahansan qorshihiisa waxa uu markaan shardi uga dhigay in qoyskiisu uu keeno dhammaantooda halkan. Van de Kaap waa uu aqbalay shardiga. maalmo kadibna Solomon waxa uu dib ula midoobayaa qoyskiisii, halka Diamondtiina lagu wareejinayo Van de Kaap. Mehdi waxay dhacdooyinkaas ka diyaarinaysaa sheeko, waxayna ku qoraysaa buug weyn. filimkuna waxa uu soo dhammaanayaa Solomon iyo Mehdi oo lagu martiqaaday baarlamaanka Koonfur Afrika. filimku waxa uu soo baxay sanadkii 2006, waana filim dhexdiisu ay ku sugan tahay saameynta bulshada. waxa uu sameeyey ama uu soo saaray lacag aad u badan, waxaana lahaa fikradda filimkan ama soo ikhtiraacay nin lagu magacaabi jiray ama director lagu magacaabay Eduardo Zweig. sidoo kale filimka waxaan ka baran karnaa in noloshu ay tahay mid adag una baahan dhawr adeeg iyo samir, iyadoo Soomaalidu hore uga mahmaaday samraasadkiisa hela. filimkan waxa uu u tartamay jaa-isooyin aad u badan, wuxuuna helay jaa-isada lagu magacaabo Oscar sanadkii 2007. haddaba muuqaalkeeni intaa ayuu ku egyahay. waad ku mahadsan tahay haddii aad intaa inala joogtay. sidoo kale waxaan baraarujinayaa in dad badan ay qaybta commentiga igu soo qorayeen su'aalihii aan soo qaadan jiray ayna aad u xiiseynayaan. haddii aad ka mid tahay, muuqaalka like saar, fariintaadana qaybta commentiga inoogu reeb. insha Allah waa soo badin doonaa haddii aad ka heshay. mahadsan.